guriga ugaaska bismillaahir rahmaanir rahiim labada qol waxa fadhiista tolka fadhiista badankooda guriga ugaaska weynana waa halkan marka loo baahdo la fadhiista hadda waxaan u socdaa mujaahid mahdi baan socdaa in iskiin bari doona insha Allah billaah kariim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهدي مقعد صدحان بالنوك هالشيء شاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مقعد واحنا إذا مهدي إسماعيل جردي وحاكل الله دول الدجان كالصومالي جارهان دجمة أو برة قبلها حرقيل ليرا ومسنتر كحرقيل ليرا وحنا شخصي وشقية حفيزك نبت جليد الدجمة أو برا أو أمكاريا كنت هنا أيضا دولة ديجان الصومالي دا يو بورا ما وإحنا كصبرتي وايا مرحبا مهدي waxaan nooga warantaa taariikh nololeedkaadii meeshii ugu horeysay waxa tiri maxirgeel baa ka bilowday iskuulka markaas ka gashay bal nooga waran waqtigaasi anuu horta magaalada goobtii la yiraahdo ayaan ku dhashay ee dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan degmada Awbare oo ah mitikiladii ugu faca dheera oo uguna taariikhda dheera marka loo eego degmada Awbare waxaan ku qoray intii hore noloshadii hore waxaan magaalada Shabeelle oo isaguna ahaa mitikilkii ugu taariikhda weynaa halkaas baan hooyadii aabahay ay ku dhinteen Allah naxariisto kadib Allah naxariisto anigu waxaan soo gudbay oo walaalkay oo madrasad ku lahaa magaalada Jigjiga ayaa i soo qaaday halkaas waxa laga daray dugsiga hoose imika la yiraahdo Xuseen Giire markaasna la oran jiray Masgaaja Timtibet kadib waxa laga dhisay magaalada Xirgeel iskuulka markaan fasalka saddexaad mariyay transfer baan qaatay halkaas baan ilaa lixaadkii joogay markay 7 ahayd anigoo arday oo fasalka lixaad ku jira waxaa la aasaasay jabhaddii horyaal waxaan tegay magaalada Boorama in yar kadib waxaa la noo qaaday xariirad oo tababar aan ku qaadanay كلي جبهتي لوا لو كلا قيبيو قيبنا إذا ما ذي راضي قيبنا حريتي سومالي قلبت أنا نسيبونا قيبتي حريتي سومالي قلبت راضي أيام كجري halka ay ugu joog mahdiyo marka waxaad ka dhawaajisay dadka farakutiriska imika aan ka hayno jabhadii horyaal xogagal waa kana qayb galay inaad tahay bal waxaan naga warantaa taariikhda horyaal halkan halgankii ka gashay adiguna aad ku jirtay kolay anigu xilligaas markii jabhadan soo raacnay anagana lama soo siinin qoriyo dhowr inan oon ku jiro waayo daadayada ayaa aad u yaryaray saldhigga jabhadda ayaan wax ku kala baranay oo markii dagaalkii aan dhex galayna nin Allah u naxariisto haliyay ahaa عيدي الشيخ علي لورين جري باتري أورو كاها وحنا لورين جري جبهة المذهب بنان أورو كشيخ علي جوهر مال ألكن قلبيت كسرت إنه توصلوا دجال كوجوري جناعة إلى يو دنجاجو ولينسي الكسبة دجال دي كوجوري أكو قالي والله الرج التاريخ لها إلهنا حريستي جناة كورابية صدق السلطان oo ah deegaanka Jaariyo Xirgeel oo ay kamid ahaayeen Arab Xuseen Guuleed oo nin taariikh saldanada u lahaa nin adag oo la yaqaan lahaa Khaliif Aare warsame oo isaguna sultaan saxaada iyo Daahir Cabdi Qaafo nin leera saddexdaas suldaan aan ka sii garanayo iyo dhowr kale oo inamadii jabhadda kamid ahaa ayaan ka ku geeriyooday Caydi Sheekh Cali waxa la soo siiyay oo markii jabhaddu ay waqti qori xakiim loo dhan jiray
annaga uuba naga dheeraan marka ciidamada qaarkood lanoo eego markii loo wanaajay aan marayno kolley militarigii soomaaliduna oo hortayo xaggaa hoosta maray dirdhabay ka soo jabeen halkaasoo horta naga hubeeyey oo ururkii Sheekh Cali Jawhar madaxa bannaanaa magaciisa ku soo baxay qoryo xakiimkii uu bedelay kadibna dad dhalinyarahoo ku jira iyo odayaba iskugu jirtaan dib ugu noqonay deegaankii Gadaguursiga dib baan usoo raafnay gaar ahaan intaas celiga iyo makeeldaraha iyo bahar cabdallada iyo harawadan maxay ahayd oo qabiilooyin badan oo Gadaguursi degaan jabhadii way xoogaysatay onaayo Fayambiro meesha Fayambiro la yiraahdo meel agteeda sabuurta qundhudhaa ayaan degnay markaan degnay halkaasaan halgankaygii ayaan intiisii ugu badnayd magaalada Fayambiro ciidan badan oo lagu soo xoojiyay Dargadiya ayaan dagaalami jiray qol aan ka saaro oo soo haddana halkii ku soo noqda la yiraahdo iyo aduu hagardaamooyin badan oo inqilaabkii marka dambe dib loo noqday Soomaaliya ka dhacay cirri iyo ay hogaaminayeen kaas buu halgankayagii kolley dhan uga socon waayay laakiin lagu jabadaha dib baanu iskugu noqonnay waxaanu degnay oo markii ciidamadii Itoobiya Ruushku soo galay xoog weyn oo dee nagana u casrisan dhulkii yimid dib ayaanu iskugu noqonnay Soomaalida marka waxaa jiray gaas duufan loo dhan jiray dhinaca iyo ogaadeen iyo ka samaysnaa ku Axmed Guri la yiraahdo jiidan jigjiga iyo deegaankeeda ka samaysnaa oo qabiilooyinka Jidwaaqa iyo Akishadii iyo ay oo fara badnaayeen annaga laftarkayaga beel ahaan niman halkaa ku jiray oo Allah u naxariistay Daahir Sheekh Cabdi Roobli iyo niman kale oo imika noolo halkan lafaciis iyo joogaaba ay ka mid ahaayeen ba gaaska Axmed Guri nagaga soo wareegay oo markay arkeen jabhadii horyaal oo xoogaysatay oo jabhada ugu hub badan uguna dagaalyahansan deegaanka lagu tilmaami jiray waxaan degnay meel la yiraahdo Baki oo Sodoma oo ah deegaanka makeeldaraha dhexdiisa ceelbiyoodna muddo badan baan halkaa joognay markaa dagaaladii ciidamadii maleeshiyada Itoobiya iyo Kuubaanka iyo wax iskugu jiray oo kolley shan dawladood oo ay Liibiya ka mid ahaayeen iyo ay taageerayeen baa quwad aad looga quwad weyn baa dib loo riixday annagu deegaankayaga ma aanan dhaafin markaa xadka Itoobiya deegaankayagaasan in badan halkaana waxa ku asaasantay guutadii loo dhan jiray guutada labaad oo ahayd guutooyinka ugu xooga weyn leh guutayaduna saddexaad loo dhan jiray beelahan jaarsada iyo in yaroo geri iyo aduu ay ku jiraan oo jabhadan kale geriguna oo fara badnaayeen Jidwaaqa iyo halka ku jirta marka horyaal jabhada horyaal Gadabuursi ha u bato laakiin waxaa jirta guutooyin waxaad ga leedahay jaarsa iyo jiris guutada saddexaad ayaa ahayd jaarso marka waxaa gaaskii koobaad halkaas ku samaysmay nin gaatuur la yiraahdo markaas ahaa adari oo korneyladii Maxamed Cali iyo laga garanaya 7 korneylo halka xeebta ka soo dego Itoobiya markii hore ay dirtay laakiin markii dambe xoreyntii iyo waxan xaggan tago korneyl Jibriilkii Oromadu kamid ahaa iyo jabhadaha ay dawladda Soomaaliya jabhadaha soo qaybisay gaatuur baa anaga nagu soo hagaagay waxaa jabhadii waxa laga warmaan noqotay in dib loo habeeyo gaaskii horyaal loo dhan jiray halkaa oo ku samaysmo tuulo la yiraahdo degmo Laqas oo xadka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa la degay halkaas baa dib tababar feedh celin iyo loo sameeyay markii halkaa tababarka feedh celinta loo sameeyay anagu waxaan ka mid ahaa ardaydii jabhadda markii hore iskuulka jabhadda waraaqayna siiyeen dib baa imtixaanka Soomaaliya la nooga qaaday anagu taas baan dugsiga la yiraahdo Xawataako Boorama ayaan sidaas
eedharkii sanadkaa baxayay ayaan kolley noqday haddana dugsiga sare ee sheekh cali jaahir baan waxbarashadaydii sare ayaan galay halkaas baan ku dhammaystay waxbarashadaydii waaya mahdi ma ahayn jabhadda horyaal waxaan anigu shakhsi ahaan kugu bartay waxaan kugu bartay markii halkan laga kicinayay ninkii idabta darnaa dadka marinayay tigreega u shaqaynayay cabdi ilay waxaad ahayd ninka quraata ee ka soo jeeda deegaankan ee weliba gadabuursiga isagoo oo jooga ku mucaaraday farakutiriskii baa halkaasaan kugu bartay internetka kugu bartay nasiibna maanta waxaan kugu la kulmay jigjiga waxa iga warantaa wixii kugu kalifay iyo sidii aad u gashay ka hortagga ninkaa xun iyo dadkiisii watay iyo ciidankiisii watay idabta darnaa aad baad u mahadsan tahay dadka bini aadmigu isku ficilna maaha isku dareenna maaha aniga iyada oo dhibtan jira waxaan ahaa xildhibaan degmada awbara kolley cadaadisyo badan baana lagu sameeyey 3 bilood baan annagoo 12 xildhibaana si xaq darro ah ayaanu loogu xidhay degmada awbare anagio masayrkayaga iyo cadaadiskii dadka lagu hayay iyo waxaan shacbiga loo geysanayo u adkaysan weynay ayaanu hadallay oo aan sidani waa gef kolley waxaa lanagu xidhay awbare markii ooyana laftu ay soo gashay halkaas iyo ay ka soo gashay xariirad ayaa iyadoo aan xilligaas markaa ciddii aan isku mucaaradkayna iska horjeednay oo maamulkii degmada laga soo bilaabo ahayd aan kaba soo itaarroonaanayno oo aan jigjigo joogno oo waaranadii aan u qaadnay lagu soo qaban lahaa habeennimadii waxaa isbedelay oo cabdiile iyo nin gobolka joogo mawlid hayr lo odhan jiray baa loo geeyey kolley arrimo kolkii la maqlay way soo galeen jabhaddii maxaan anagu jabhadii oo ka hortagnaa jabhad kalaa halkan lagu haysatay udheel haroo la yidhaaho halkaas annaga oo rabadaan bil rabadaan oo 5 cisho rabadaanta kaa dhantahay ayaa naloogu yimiday berrina 3dii qabaale ee nimankii cadaadiska ku hayay shacbigan kusoo ururin lahayd ayaa noo ballansanaa waarankiina u goonaa kuwan iska daaya kuwan annagaa idinkaga filan idinku xaggaa u kacalayro annagu sidii aan u fadhinay baa laba la isku kahay katiinadeeyey sidaasaa jeelka maamulka degmada oo aad nooga cadhaysnaabaydin noo soo gudbiya jeelkii jigjigaan annaguna ku dhegnay kolley halkaa dhibaatooyin badan baa nagu gaadhay 3 ninoon anigu ku jiro waan dagaalanay oo 3 nin ii magacow adiga oo mahdiya aniga oo mahdiya nin la yiraahdo axmed leeg axmed xasan guuleed ayaa la yiraahdaa nin cabdi waqooyi isagana la yiraahdo kolley 3deeduba jaariya xirgeel baan ku soo kala jeednay raggii dagaalkii marka 3 nin waa 3 nin oo makaal dheera waxa marxaba 12kan xidhnaaba anagu 7 markaa makaal dheera ku ayaanu ku ahay inta kale nin imika qareen oo buux leeyahay oo saaxiibna oo qareen dawladda deegaanka Soomaalida imikana uba dawladda dhaxaba qareenada kililada kamid ah oo ninka saddexaad kamid ah marka qareenada Itoobiya loo eego ayaa iyo nin gorayo la yiraahdo oo isaguna labadan ninna waa reer Axmed ninna waa reer Xamud oo joogay imika labaduba la si wanaag ay nool yihiin iyo xildhibaanada degmada markaan ku ahayn waxaan ahayn degmada la yiraahdo awbare ama kililka marka la yiraahdo wax si dimuqraadiyad oo dareen shacab leh ka hadla xildhibaanadii ugu dambeeyay yaa marka halka marayno anaga la xidh 3 bilood kulli aan inanteeda curada la igu bedelay nimankii dhibaatooyin dambe ay naga iman iyo haddii dibadda loo tuuray iyo waxyaabahaas ayaan ahaa
dee waxaa aniga layga qaaday inanteeda la siiyey wax meel iga tegayna uma arkayno dee ilmahayga unba la siiyey iyagase laakiin foorjo iyo waxay ka ahayd waxay arrintii sidii u socotaba waxaa laga ilaaliyey inaanu shirar iyo waxaa inaan tagno degmadii iyo cid walba lagu ballamiyo waxa la yidhi shir dowlad deegaanku leeyahay ayaanay nimankaas kasoo qayb gelin oo lagu dhallaamaynayo lagu sidaad qof marfuucal qalama ku noqoto waxay soo socotaba aanu maalin maalmaha ka mid a anigoo xaafadaydii ka yimid oo shandadaydii iska wato oo waxaan imiday halkan control meel geelboob la yidhaaho oo la faciisa waaya jooga dharka alaaba markay de biniaadmigu xaafadooda ka ambaxayaan dharka way kaawadaystaan oo lalaalaabtaa dharkayga oo i kaawadaysan ayuu mid askartii liyuga ahaa ayaha furigii shandadii oo waan furay ana markaa saa u gara fadhiya ayuu dabada intuu shandadii qabtay dharkii daadiyuu hurgufmay warde iga daa maxaad adeer maan arkayna nin weynahay maxaad dharka boodhka igaga daadinaysaa odhan naclaa hooyadaa ku yaallay wakacaydaasi anba imikada madaxtooyada waan ka hayaa dadka deegaanka soo jeeda aad bay u cay xun yihiin oo akhlaaq xun yihiin haye halkaa markay marayso waxaa lacag baan markaa sidey nin tilmaamtinahay oo beeraan uga iibiyey halkan deegaanka ku lahaa ee lacag 20,000 iyo meelaha uga sidey habeenkii jigjiga ayaan galay aroortii baabuur araabi tegay xaggan dhexdani baa xidhnayd harad iyo dhulkan oo dagaalada oromiya waxbaa jiro baabuur dir laba tegayo dambal iyo maraya ayaan go-aan baan naftayda habeennimadii qaatay inaan tan ama ka dhinto ama isbeddel deegaanka ka yimaada waxaa markaa joogay dad jidwaaq iyo ciise iyo ogaadeen iyo qabiilooyinka halebaa oo bareeday baa iyaguna joogay dirnaba kulley aasaasnimalka u tegay dirnaba dad dir iyo wax iskugu jirjiraan yar aasaasnay harar baanu imanay harar baa shirkigii ugu horreeyey oo ay runtii qurba joog mayka la yaraayo ninkii mayka oo isla deegaanka aan u wada dhalanay ergeel laakiin naftiisa mujbuuranaysa reer xaamid gaal anigu marka qaybta Soomaaliga ayaa tifiyadu iga wareysanayeen isagana qaybta Ingiriisiga ayaa laga wareysanayay habeenkii markii barnaamijkii la arkay deegaankii baa la iskala kacay wixiisii badaninkii waa la galay intaas marka waxaan ku ahayn dad aan arrimaan ogeynba oo aan soo kaxayno kale in la asaaskaasi baa jira laakiin cajalada markaa wareejinaysa 3 nooc kale dheera ayaan ku ahay kadib markii la naga arkay oo barro dhan baa waa soo tiri waan afar markaan joogaan ku yiraahdayn in Mariya ay bareerna kulay labadii nin kale way goor wareegeen anu aan iska baxay ilaa Adsaaba habeenkii labaad baa shir ay leeyihiin dadkii dulmidiidkii meesha sii joogay dulmidiidku markaa waxay u badnaayeen jidwaaq Soomaa runtii nimanka arrinta ka hadhi waaye iyaga dib waliba ku martay jidwaaq bay ayay hayeen ciisaha laftiisa ciisuhuna wuxuu u barbardhigay qolada ogaadeen kale u barbardhigay dadkan marka deegaanka iyaguna marka ku noolaayay reer ogaadeenka oo reer Isaaq iyo reer Cabdilabaleena way joogeen oo kulli qaybta saddexaad bay ayay ku jireen anigu habeenkii ugu horreeyay marka yaaba ilaahay u keenay dadkii oo salaadiintii soo dhaweysay Sultaan Cabdiraxmaan Badi iyo ay ka mid yihiin halkaa baan ku hadlay oo Cabdilay baa oran jiray Allah isulaha afar qof oo jidwaaqa meesha yaacday mucaarad baa jira marka anu waan isashaaciyo waxaan ku yiri afayeenka beelaha gursi baan ahay dulmidiid baan ahay maanta laga bilaabo marka kii waxa ku meeraysan jiro
dulmidiid kan halkan ugu yimid waa dad Soomaaliyeed meesha iskaga tag wax ku yaal ma jiro wakaas gadabuursi ayaan kooban maanta ka ahay halkaas baan halgankaygii ka bilownay dhibaatooyin badan way nagu soo gaadheen xilliyada Ramadaanka oo kale marka aan aftirayna iskugu imano meel aaran la yiraahdo xubin iskugu imid jiray hotel kala jaadjaadahan deganaane oo nin iyo taalkiide ku deganaaday waxa marka galabtii qoladii Tigrayga oo ninkan Cabdiilay oo ninkii u shaqeynaya ahaa jeneraaladoodii fiidka baa sidii shaydaanka marka aftirka la furfurayo bana lagu soo furfuri jiro rag badan baa wallahi halkaas gacmo ku gaadheen oo ogaadeen laho gadabuursiga oo anigu kollay 17 cisho markaan joogay qola qabiil iyo gadabuursigiina laba nin oo kaleeri dib yimaadeen haddana dad halkii sii joogay bahsaad baan lagu rido shirkii aw baraa markaas yaa bilaab iyo Cabdiilay ugu dambeeyay oo sidii waxa markii hore awdal baa la magacaabay Maxamed Siyaad Barro sii dhaqaaq haddana tan taariikhdan dambe Cabdiilay maanta idin soo jeestay wax buu video sheeko halkan oo laamayadan baan sameeyay maxay baan sameeyay gadabuursiguna waa dad aragtidooda dareenkooda waa dad sidooda kale wanaagsan way laakiin waa dad wixii la yiraahdo waa muslim oo iska qaadanay iska qaato manafaqadaha warma imikan dambaystan yan maxay dhahnaa ninka dab lagu shidayo shirkii ugu dambeeyay xisbiga uu qabtana oo baro ku qabtay oo anaguna inta waxaanu ka digayn war ceebta ugu dambayska kale uu soconaya ceebta ugu dambaysa ayeen raacina ka daayay degmado waa colaad badan oo ciyaaladayadii iyo dhiftayadii oo anu saddex qof oo dhalay oo kulay shaqaale iyo waxa dawas kaga qaxeen oo hawdadka harawiyo dhulkaas iyay markii laga dayni waayay aabihiin baa waashay aabihiin baa xagga jooga xageed dib ku galaysiin laakiin abood ma too mujaahid haye abo dad dhimanaysiina dhinta dad Soomaaliyeed baa dhimanay dadka aan bad kamid laakiin anu waxa soo noqonay iyo wax calool jilay oo mujrimkaasi intuu joogo dhulkan ku soo noqonay ilaa kaga tuuro ama aan dhimano mooyaan anu taariikh min doonayaan Allah maxakum baan kulli odayada markay dheeraa halkii aad uga hadlay oo yiri ninka ay dadkiisa anaga mas'uulka marka kuwa kale ee Soomaalida la soo qabto ee qabiil waliba dadkooda soo qabto iyana kuna soo kuwayaga soo qabanayna kuwayaga mid telefishin gaar ah ku yeelan Cabdilaahi Daahir iyo Arab Aleeliya la dhaw kulli odayada xilligan jooga oo aan halkan uga mahadnaqaya maadaama ay awlaadaydi intaanka ku jiray iyagu ay safkareen oo saaxiibada aad baan ugu mahadnaqaya aan ilaa horyaal iyo dagaaladii badnayd deegaanada iyo dadweynaha saaxiib ku ahay waajibaadkoogina gutay iminkan aan uga mahadnaqayo ayaan marka carruurtaydina u calo adkeysiyey oo markaan anagu dhimano ayaad dhimanaysiine ka baxo odayga ka daaya calooliyo waayahay mahdi de anu laba goor saddex goor baa imid deegaanka ninka waa la markuu meesha haystay dhibt baa ka jirtay laakiin maanta waxaan marag badoon aan xaqiiqo ku hayaa oo aniguba u jooga dimuqraadiyadda ka dhalatay xuquuqa qowlka oo qof kasto afkaartiisa dhiibanayo isbeddelkan ma ugu mahadnaqaynaa qowmiyadda quraata ee qowmiyadda kaga dhabaysay ee keentay Ethiopia marka la yiraahdo waa oromada ma sidaasaa mise waa si ka duwan wallahi halkayga sabab ka soo daanayna gacan siinin ma socdeen runtii waana ugu mahadnaqaynaa oo gaar ahaan dhalinyaradii qayrada la oran jiray waxay nagala dagaalameen habeenkii inay meelahan joogsaniyo meelahan seexaniyo meelahaas inay ku soo ururaan agagaarkooga iyagoo raadinayo wax direysito annaga na doondoonaya rag badan oo laga soo qabtay oo Cabdiilay intuu lacag soo bixiyo korneelo dhan oo ciidamada qaranka iyo kuwii liyuga ku jira ayaa laga soo daba diri jiray kulay ragana safgareyn jiray ee naga ilaalin jiray ee laga baqi jiray bay ahaayeen oo halkan aad bay ugu bareereen
waana nagu mahadnaqaynaa. laakiin dowladda tigreega dadkii ridayso iyaga maaha. Of course hadday jirinta iyagu waxa weeye quwad maas dhan oo 40 milyan gaaraya dee waad garanaysaa raadadka ay reebayaanoo nafnacay oo meeshii kasta dee sida daadkay ugu rugmanayeen markii deegaankoogan oo kale dee lama dhex geli karin intay doonaan ha dhintaan dhimasho macnamo le bay oranayeen laakiin badheerkii ay u badheereen dee nimankii quwadda yaraa oo dalka ku dul xoogaystay oo hantidooda boobay ee tigreeg lo odhan jiray qaybtan iminka dowlad deegaanka soomaalidana ninkaa waalan iyo ciidamadii wixii hawatay booyada hanti ayay booyada inta hantida ku qaateen ayaa wax la maqan iyo wax la soo qabtay bay ay leeyihiin marka waan ugu mahadnaqaynaa ra-iisul wasaaraha dalka u dambaystii markii aanu jigjiga aan diri dhabo hore halkan iskaga tago oo deegaanadiinaas kaga dhawaaqa buy bas waa laydinka qabanay markaa sidii baanu ku soo baxnay oo kulley aanu dhowr qof oo la soo diray waxa ku jiray sii salaxayay dir dhabo oo maadaama ay qabiilka gadabursiguna ay magac ku lahaayeen degmo dambal iyo deegaano kale oo ka mid ah shinilaba ay dad ku nool badhna dhul kule badhna walaalahooga ciisaha iyo iskagala noolaa ka mid a ay jireen oo fara badan ganacsato ay ku lahaayeen anigu markaa nin walaba reerahoogii baa loo soo diray dhowr qof oo ku jiro si ay usii salaxaan halkaaban markaas kasii salaxayay sidaasuu shirkiina markii ay ciise u badheereen meel kale runtii laguma dhigi karaynin oo taa laftooda qabiilka ciisuhu dee mahad aadan ayay ka lahaayeen qurba joog ahaan hal nin baa ku jiray qurba joogtii absamaha ayay imanaysay ninkaasi ciisu ahaa markuuna ogaaday inaan inteedani samroonahay intaasina ciise ay tahay isaaqan hal qof baaba nagaga jiray oo annaga saaxiibtinimo weli baanu ugu yeedhnay wixii shirka diri dhabaa ka horreeyey wuxuu odhan jiray wadaanu saddexdan reerba anaa idin matelo waa run baan odhan jiray adaana matele oo qurba joog ahaan nagula socdo nin cali baa loo reeyo nin gaaban oo aad waliba ciisaha galbeedka oo aad ciise qoladu ka hamaa ma garanaysaa walaaldoon baan jecelahay walaaldoon ay marxaba mahdi waxaan joognaa gabagabays gurigii ugaaskaan joognaa inkastoo ugaaska jigjiga deganina adiisu degan yahay waxaad 5 mirir ugu dambeysay maxaad faraysaa gadabursiga ku nool qurba joogta dibadaha ku nool ee weli hurda waxaan aan ugu baaqayaa oo aan leh ogaada horta cid kasta aad tihiin qabiilka gadabursiga waa dad aan abtirsiintoodu aan kala fogeyn waa dad wada dhashay waa dad isku mid ah waayadan dambe cudurro degmada gobolka awdal iyo waxyaabaha ka soo baxay baa halkana ayaa saameeya laakiin wax reer la yaraa inta aad ku dhaqmaysiin qabiilooyinka soomaalidana lama tartami karo go-aanna ma yeelan karo inta halka jilib ee ugu yar ee gadabursiga dibadda ka maqaya ama aan ligayno ama aan reehel la leeyahay taas dad badan oo farteennii bartooyna kaga faa'iidaystaba ayaa jira anigu waxaan odhan lahaa walaalahayow sida kale dad xun ma tihin waxyaaba badan baad nala soo qabatay dhibtii imika xajiin ka dhacday oo kale samaroon oo dhan una soo caawiyo oo agoontii dadkaa ka hadhayo waxway nagala qabteen wayna ku mahadsan yihiin oo dhammaantood waan wada mahadnaqaynaa oo ma yahayn ama dad makaahiila ama dad makayldheera xajinna xasuusi dad badan baan ogeyn xajiin waa meeshii markii imika dawladdan inta lagu jiray kacdoono yar jiray ayay qaar kaga faa'iidaysteen reerkii anigu aan ka dhashay oo halkaa deganaa reer ugaas mise makayldheere reer ugaas oo waliba reer ugaas cabdulla reer kul cali jiibkaasi ahay anigu
baa qaar dulmudiidkii iyo waxaan ku wada jiray iyo oo aan laba yaro ujeedo laba afkaarood iyo afkaaro aan isku diidnayntii kulley halganka marka lagu jiro dadka waa lays bartaay oo qaar baa hunguri xumo lagu bartaay oo qaar baa waxyaabo badan baa jira aan afkaartayadu yar kala gudisnayd baa dawladdii cusbayd ee dulmudiidka ahayd ee walaalahayd baa dhib aniga ay la dhex martay darteed baa la buunbuuniyey waa la waxeeyey oromay galeen iyo maxay iyo oromo waa landheere haye deegaanka ugu soo dangalna maxaa ka 15 waxaan nahay ugu soo xiga dhinacan oromada oo qabiilkan jaasadu ay degan yihiin oo dad Soomaaliyeed oo walaalaha oo dira oo kala guursano oo as dhaldhale baa fogeyntii xukuumadii systemkii hore ninkii waa la uu sameeyay halka uu kala qaybiyay gelina oo daarooda iyo kuwaas oo oromo iyo waxa oo facaal xuna dad isdhalay oo meel kale oo candhiya caanaheeda marka tiiba anagana wax naga saameeyay reerkaygiiba duulimaad lagu sameeyay kullay laba qof oo ajishi ilaahay uu ku dhacday iyo laba nin oo dagaalka ku dhintay baa afarta qof baa dhintay xasuuqii xajiin loogu magac bixiyo anaguna aan isku wada daray oo markii hay waa ciidankan cusub ee dimuqraadu ka dhashay Mustafa waxa ay qacantu kaga dhacday iyo ciidankii degmada iyo waxbay iskugu jirjireen oo markaa waaya runtii dib loo habeeyay feedcelintan dib loogu celiyay dib ciidankii liyugi loo habeeyay dadkii hore dilka uu la baray bay ahayd oo iyo saqajaanka iyo waxa uu la baray laakiin imika la habeeyay oo xaqiiqadii soo noqday intaana markaa habeyntaas horteed yar bay sababtuna waaya waan ka yar baxnay hay'ad xajiin baan ku yar xasuustay ku soo qurba joogtii waxaad fariintii ugu dambeysay waxa la inni koomida yaa tiri hadda dadka gadabursiga la yiraahdo waxa la yiraahdaa Afrika marka laga hadlayo odayadii dagaalkii labaad ee adduunka galay ee dibadaha u baxay markay soo noqdeen Afrika oo Soomaalida san taariikhda ku hayo Maxamuud Xarbi uu kaga jiray Soomaali marka loo eego oo 20 nin oo Jamaal Cabdi Naasir iyo madaxweynihii South Africa bariga dhaweyd dhintay Nelson Mandela niman caynkaas wada ahaa waxa la yiraahdaa odayadii dagaalka labaad ee adduunka galay dhinaca Yurub iyo u talaabay markay soo noqdeen bay xoreynta Afrika ayaa la bilaabay kullay dhulkii ilbaxa iyo wax laga soo qaadan jiray ama tiknoolajiyada cusub iyo idinka ayaa jooga laakiin ha ku fikirina inaad ama qabiil gadabursiye oo aad ka dhalatay gaar aad u kiciso inta hal jilib oo gadabursi meel kaaga maqay gadabursi waxa ma noqonay ilaahay saddexda dhadhaar wixii sameeyeen ilaahay waxa wanaagsan ha soo hadeeyo waxa kalena ilaahay meel bas ha ka tuuro fikira oo nagu mideeya oo wax noqonaynaa maxaan dad Soomaaliyeed kaga qayb galayna gudahayagiiba iyo la xumeynayaayo annagii wada dhalanay baa magacyo la noo kala saarsaar waxana badana aalaaba la yiraahdaa aga qurba joogtay inaga soo galaysaa cid waliba reerkoogii makaahil wax la yiraahdo ma jiro wax la yiraahdo Axmed Casib ma jiro wax habar cafaan la yiraahdo ma jiro dad wada dhashay oo mid qoro oday quraati ka soo wada jeedo ayaan dad baa iyo waxay ku midoobaan meelo dheer ama deegaan ay isku yimaadeen iyo wax kuwan oday baa dhalay ilaahay hada taqaaniin cudurka nagu faafinin gadabursiinad wuxuu qabatiin hada doonaysiin horta mideeyo dad wada dhashayna yihiin tusaanu waan ka xumahay waliba hadaan maanta u helayo 200 oo nin oo magacaas ka xor ah reehbala wixii ku dhaqmayana inay la cimrigeyga inta ka dheewan oo la dagaalami lahaa jazakallah mahdi buu ahaa mujaahid mahdi jigjiga taariikhdu maanta waa February 22 banu waxaan joognaa gurigii ugaaskan joognaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh